youtuber kasta ku kastoo reaction ka bixiya fanaaniinta riwaayadaha hablaha isruuxaya kuwa soo riwaayadeynaya waxaasoo dhan ee ka bariisaynaya in ay dadka fadeexeeyaan ee ka bariisaynaya hablahan aad ka bariisaynaysaan aad fadeexadaynaysaan walaalo ayaa la dhashay rag baa la dhashay walaashaa adiga kula dhalatay maanta halkaas maadan soo geliseen gabadha aad dhashay halkaas maadan soo geliseen xaaskaaga maadan halkaa ku fadeexadayseen haddaba hablahan aad soo fadeexadaynaysa rag bay xaasaskooda yihiin rag bay walaalahood yihiin rag bayna la dhasheen rag baana dhalay oo ka danqanaya haddaadan adigu ka danqanaynin alxamdu lilaahi waxda wa usalli wa usallimu calaa man laa nabiya bacdah ama bacd assalaamu calaykum waxaan halkan usoo fadhiistay maanta waxaan rabaa inaan la hadlo oon cod dheer u dirayaa walaalahayga youtuberada ah ee reactionada ka bixiya fanaaniinta hablaha isa soo ruxruxa kuwa riwaayadda soo jila ee risqigii uu ka galay in ay ka soo hadlaan ama falanqeeyaan nin heesay siduu u heesay gabadh isruxday siday isku ruxday mid dacaayatamay siduu u dacaayatamay waxyaabahaas uu risqigii ka galay walaalayaal horta meeshan aan joognaa waa adduunyo adduunyana waad ka tegaysaa waad ka safraysaa qabri ayaad gelaysaa 2 mitir oo square ah laga yaabaa maanta inaad degan tahay guri aad u weyn qolka keliya taa uu yahay 5 mitir laakiinse waxaad ku dambaynaysaa qabrigaas aan soo sheegnay si deganaana waxaan idinkula hadlayaa waxaan rabaa qalbigiina inaan la hadlo haddii maanta gabdhahan isa soo ruuxaya ay arsaaqdii idinka gashay in aad magaranaysaa ay ka bariisaysaan gabadh baasaan isku soo ruuxday gabadh baa halkan ka dhacday mid baa badda aadoo ku soo dabaalatay mid baa jidhkeeda soo muujisay mid baa isa soo qaawisay halkaas haddii ay arsaaqadii idinka gashay waxaan rabaa inaan dhan kale tooshka idinku qabto maasha allah dad badan ayaa idinku xidhan 90% waa jaahiliin waxay kale og yihiin ma laha waa shacab masaakiin ah waad u faanaysaa waxaa laga yaabaa qaarkood inaynan qadaynin adigoo cunto cunaya ayaad soo dhigaysaa adoo gaadhi wareera wata ayaad soo dhigaysaa dad waxaa laga yaabaa ku daawanaya oo asxaabtaada kugu xidhan ka mid ah inaynan soo qadaynin inaynan soo quraacanin inaynan casho meel ku ogeyn in shilin lacaga aynan haysanin waad u faanaysaa halkaasaan joogaa waddankaasaan joogaa magaaladaasaan joogaa halkaasaan ka dhacayaa halkaasaan seexdaa ayaad ugu faanaysaa waxaad soo falanqaynaysaa nin soo ciyey soo heesay halkaas heesta waxaasaa ka qaldan sida adiga abwaankii aad sameeyey aad tahayba subxaan allah walaalkayow shacabkaa kugu xidhan ee masaakiinta ah bal ka waran dhankan aad u wadda maahee dhan kale haddaad u kaxayso dhan aakhiradaadana ku wanaajinaysaa ilaahay agtiisana aad sharaf kaga yeelanayso adduunkana aad sharaf kaga yeelanayso waxaan rabaa inaan idiin sheego hablahan aad soo dhigdhigaysaan isa soo qaawiyey astura ilaahay wuu idin asturayaa waxaa gabadha yareed la yaabtaan ama kaad la yaabtaanba waad soo dhigaysaan astura ceebihiinna inaan la asturo maydaan jeclayn idinkaba ceeba waad leedihiin in la asturo maydaan jeclayn astura ilaahay dartii wuu astura ha soo falanqaynina ha soo dhigdhigina meelahan dadka ha u soo gudbinina waayo haddii aad maanta dadkan aad asturi weyso ood ceebahooda soo faaqfaaqdo oo aad bannaanka soo dhigto
wallaahi billaahi waan dhaartay uqsum billaahi alcaliyi alcadiim adigana ilaahay uu ku fadeexaynayaa inta dad eed ku hor fadeexadaysay qofkaas hortooda ayuu adna ilaahay kugu hor fadeexadaynayaa waayo allah jalla wacalaa run ayuu sheegay waxa uuna dhahay waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wa anna sacyahu sawfa yuraa ka insaanka la yidhaahdo waa innagee waxa uu shaqaysto uu u shaqaysto unbuu helaya haddaad u shaqaysato inaad dadka ceebahooda faaqfaaqdo alla way is ruxday alla way is saanay istiri alla saanay samaysay alla way isqaawisay alla kan eega ila eega maanta layaabkii ugu dambeeyey baraankigii ugu dambeeyey kufsi halkan ka dhacay saan adigana saas unbaa lagu fadeexadaynayaa sidaas unbaa lagu fadeexadaynayaa ilaahay sidaa aad qofkaas magaranaysaa u fadeexadaysay ayuu kuu fadeexadaynayaa inta qof ead ku hor fadeexadaysay ayuu kugu hor fadeexadaynayaa waayo waxaan adiga ayaa dhigtay waxaad dhigatayna waad la kulmaysaa wa anna sacyahu sawfa yuraa buu dha ilaahay wuu la kulmayaa wuxuu u shaqaysto ayuunbuu la kulmayaa maxaad u shaqaysatay maanta waxaad u shaqaysatay oo aad ka bariisaysay oo aad gawaadhi ka iibsatay oo aad gurye ka dhisatay qof aad ceebihiisa soo faaqfaaqday waxaad gurye ka dhisatay waxaad gawaadhi ka iibsatay waxaad ka labisatay qof ceebtiisa oo aad soo faaqday adigana markaa maxaad filaysaa ceebtaada ilaahay saasuu u soo faaqaya adigana qof kale ayaa kaasii beriisaynaya qof kale unbaa adigana kaasii beriisaynaya prank challenge wuxuu yahay ma taqaanaan challenge micnihiisa ma garanaysaan challenge micnihiisa waxa weeyaan waa sharad ila dhiga sidanaan u jaasi karayaa carma u jaasi karaysaa halkaasaan ka qadaynayaa carma ka qadayn karaysaa gabadhaasaan la sheekaysanayaa ma la sheekaysan karaysaa qofkaasaan prank ku samaynayaa prank noocaas oo kale ku kadaran ma keeni karaysaa sharadkayga ma jebin karaysaa challenge micnihiisa kaas weeyaan dad baa waxay ka beriisaynayaan oo ay youtubero la noqdeen oo ay la furteen kanaalo intaasoo malaayiin dada ay ku xidhan yihiin boqolaal kun oo dada ay ku xidhan yihiin oo ka beriisaynayaan in ay qof sirihiisa baadhbaadhaan in nin iyo naagtiisa oo kala tegey ay wax ka sheegaan in madaxweyne la siibay iyo ku la saaray ay maanta o dhan falanqeeyaan in gabadh isa soo ruxday meelahaas ay ceebteeda faafiyaan in ku soo riwaayadeeyey meelaha uu ku khaldan yahay oo waxyaabo ay ka gudbiyaan waxaasay ka beriisaynayaan subxaan allah lacagtani ma xaaraan baa ma xalaal baa ma isweydiisay wax xalaala haddii aad quudato ood cunto ma og tahay inaanan salaadaada lagaa aqbalaynin in aanan ducadaada lagaa aqbalaynin in camal wanaagsan oo dhan ood la timaado lagaa aqbalaynin walaa sadaqo walaa zak waxaad la timaado o dhan aanan lagaa aqbalaynin ma la socotaa haddii xaaraan jidhkaaga ay ku jiraan ama aad ku labisan tahay ama aad cuntay inaadan camalka wanaagsan ee aad samayso lagaa aqbalaynin taa ma og tahay horta haddii aadan ogeyn hadda ogow haddii aadan ogeyn hadda ogow ka digtoonow waxyaabaha aakhiradaada kaa fasahaadinaya nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhahay maa yantiqu cani ilhawa nebiga wuxuu dhahay waa waxyi in huwa ilaa waxyun yuuxaa been ma sheegin nebiga sal ly slam wuxuu ku hadla oo dhanna waa waxyi wuxuu dhahay ila dhegayso cali ayaa warinaya radia allahu can xadiidkan wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam qofka hamigiisa ugu weyne uu noqdo adduunyo seen u tabcadaa seen lacag u sameeyaa seen baabuur u gataa seen guri u gataa seen xaas qurux badan u guursadaa seen adduunyadan seentiisa ay ku wareegayso qofkaas wuxuu dhahay sala allahu alayh wasalam faqri ayaa labadaa indhood halkaa loo saaraa xitaa hadduu milyaneer yahay xitaa hadduu malaayiin lacaga haysto faqri ayaa halkaas loo saaraya labadiisa indhood dhexdooda adduunyada hawlihiisii adduunyadana ilaahay waa ka kala firdhinayaayo bari iyo galbeed ayuu ka kala geynayaa weligiina wuxuu doono hadduu helo ma qancaya qofkaasi
qof kasta buu dhahay sallallahu alayhi wasallam hamigiisa ugu weyne aakhiro noqdo halka uu u shaqaysanayo haddii uu tukanayo ilaahay dartii u tukanayo haddii uu sadaqa bixinayo maalinta qiyaame ilaahay uu kaga cabsanayo haddii wax kasta hamigiisa ugu weyne uu yahay maalinta qiyaame iyo aakhiro iyo janno halkaas qofka uu hamigiisu yahayna ilaahay qina ayuu siinayaa qina nafs ayuu siinayaa qina wuxuu siinayaa wuxuu wax kasta uu ku qancaya wuxuu haysto haddii yar yihiin hadday badan yihiin uu ku qancayo intaasaaba ka badanba hawlihiisii adduunyana ilaahay uu iskugu keenayayo meel iyagoo saa iskugu duuban ayuu la kulmayaa subxaan allah labada dhinac kee wanaagsan dhinacee ayaa wanaagsan waxaan idinkula dardaarmayaa hadalka inaan sii dheereeya ma rabo waxaan kula dardaarmayaa youtuber kasta ku kastoo reaction ka bixiya fanaaniinta riwaayadaha hablaha isruuxaya kuwa soo riwaayadeynaya waxaasoo dhan ee ka beriisaynaya in ay dadka fadeexeeyaan ee ka beriisaynaya hablahan aad ka beriisaynaysaan aad fadeexadaynaysaan walaalo ayaa la dhashay rag baa la dhashay walaashaa adiga kula dhalatay maanta halkaas maadan soo geliseen gabadha aad dhashay halkaas maadan soo geliseen xaaskaaga maadan halkaa ku fadeexadayseen haddaba hablahan aad soo fadeexadaynaysan rag bay xaasaskooda yihiin rag bay walaalahood yihiin rag bayna la dhasheen rag baana dhalay oo ka danqanaya haddaadan adigu ka danqanaynin waxaan kugula dardaarmayaa adduunka ka xoogso dhididkaaga maal xoolo xalaala raadso wax baro aqoon raadso cilmi raadso waxyaabo kale oo siyaabo kale oo income xalaala aad ku heli karaysa raadso ama meeshan aad xumaanta ku faafinaysa iyo falanqayntan ma garanaysaa siraha dadka iyo ceebaha khayr ku bedel dadka boqolaalkee kugu xidhanna hormuudka aad u ahayd hormuud wanaagsan u noqo waayo qof kasta oo ku raacay waa lagu weydiinayaa qof kasta oo aad dhumisay oo aad waddada saxda ka dhumisayna waa lagu weydiinayaa oo meel ayay kuu taallaa way kuu qoran tahay waxaan kugu soo koobayaa hadal yar oo xigmadaysan adduunkan waxaa ku nool 3 qof 3 qolo ayaa adduunkan ku nool 3daas qolo waxa weeyaan qolo waa qolo khayr u taagan khayr bay u taagan yihiin oo khayr waxaan hayni kama soo fulo qoladaasi waa qolo khayr u taagan qolona waxay u taagan yihiin shar wax aanan shar ahayni kama soo fulo habeenkooda iyo maalintoodaba qolona labadaas ayay u dhaxeeyaan 3daa qolo ayaana maalinta qiyaamo la xisaabinaya haddaba maxay kala yihiin 3dan qolo 3dan qolo waxay kala yihiin qolada aanan ilaahay caasinin ee khayr waxaan hayni una ka soo fulin waa malaa'igta waxaa ka mid a kuwa maalintii la abuuray ilaa maanta sujuudsan maalinta qiyaamo markay sujuuda ka soo kacana waxay dhahayaan subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik ilaahay wadaa xuma ka hufan sidaad xaq noogu lahayd inaan kuu caabudno kumaanaan caabudin subxaan allah kuwana sharun bay u taagan yihiinoo waa shayaadiinta iyo abaaliista kuwana labadaasay u dhaxeeyaanoo waa qolana labadaasay u dhaxeeyaanoo waa innaga waayo waan imtixaamanahay 3daasun baana maalinta qiyaamo la xisaabinaya san hore kugu soo sheego nuga soo dhawaajiye kuwee ayaad markaa adiga isku tirinaysaa ma dhankaa iyo midigta iyo malaa'igta dhankooda mise dhankaa iyo bidixda iyo abaaliista iyo kuwa sharwadeennada dhankooda su-aashaas iiga jawaab ani waxba ha iiga jawaabin haddaad rabtee naftaada weydii jawaabteedana raadi asalaamu calaykum